gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Cali Cabdilaahi Daahir isaguna booqasho rasmi ah ku jooga wadanka Djibouti iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa xarunta banka dhexe ee dalka Djibouti ku qaabilay dhigiisa gudoomiyaha banka dhexe ee wadanka Djibouti Axmed Cismaan gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo gudoomiyaha banka dhexe ee Djibouti kulankani ayaa waxa la isku soo qaaday sidii loo dardargelin lahaa cilaaqaadkii xiriirkii hore uga dhaxeeyay labada baan ee Somaliland iyo Djibouti iyo sidii tababar loogu furi lahaa qaar ka mid ah shaqaalaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ugu horeyntii waxa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha banka dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kale waxa isaguna saxaafadda la hadlay gudoomiyaha banka dhexe ee wadanka Djibouti waxa aniga ah gudoomiyihii banka dhexe Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdi aan hogaaminayo aanu ku nimid Jamhuuriyadda Djibouti aan walaalaha nahay safar runtii martiqaad oo noo fidiyeen walaalaha iyaga bankiga dhexe gudoomiyaha iyo madaxda bankiga dhexe Djibouti waxaanu halkan ku yeelanay kulan aad iyo aad u qiimo badnaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxda kale ee banka dhexe Djibouti taasoonu ka wada hadlaynay sidii loo horumarin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada banki la isku weydaarsan lahaa aqoonta waayo aragnimada shuruucda iyo loo xoojin lahaa qaybta aanu qaabilsanahay labada dowladood wada shaqayntaanu kor u qaadi lahayn sidii aanu uga wada shaqayn lahayn sidii matalan ay nooga caawin lahaayeen walaalaha iyaga Djibouti bankiga dhexe in kor loo qaado aqoonta shaqaalaha in wixii matalan shuruuc ah experience ah aanu isweydaarsan karnaa aanu isweydaarsano anagoo runtii aad iyo aad uga mahad celinayna soo dhaweynta qiimaha badan ay noo sameeyeen warbixinta qiimaha badan ay na siiyeen gudoomiyaha iyo madaxdiisa kaleba aad iyo aad oo xafiiskooda ku soo booqanay nagu qaabilay aad iyo aad baan uga mahad celinayna tanna ma noqonayso insha Allah tii u horeysay uguna dambeysay waxaan xiriir soo jiray buu ahaa oo runtii labada banki lahaayeen labada dowladna lahaayeen soconna doonta dardargelina doono insha Allahna sidaanu kor ugu qaadi lahayn dhaqaalaha iyo eeriyadaan u qaabilsanahay shucuubta iyo dowladaha xiriirka runtii Djibouti iyo ka dhaxeeya Somaliland maaha mid jiiraan ah waa mid walaaltinimo waa mid wada dhalasho waa mid ganacsi waa mid siyaasadeed marka waxa weeye gudoomiye aad baan kaaga mahad celinaya aad iyo aadna waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi maanta sidaad wargeysiin waxaan soo gaaray marti sharaf oo gudoominayay gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland marka annaka waxay noo tahay farxad weyn waa maalin weyn oo central bankadu adduunyada way wada shaqeeyaan marka laba wadan oo walaalo jaara oo ay ka dhaxeeyaan cilaaqaad baayac mushtar dad wax kasta ka dhaxeeyaan waxa waajib ku ah inay wada shaqeeyaan oo isgargaaraan ay adkeeyaan cilaaqaadka ka dhaxeeya labada central bank labada wadanba sidii ay u caawin lahaayeen dhaqaalahooga iyo nidaamkooga marka waa wafdi weyn oo maanta soo gaadhay waxaanu ka sheekaysanay arrimo badan oo ku saabsan sidii la isku gacan qaban lahaa sidii la isku gargaari lahaa sidii adduunyada loola jaan qaadi lahaa sidii cilaaqaadka dadka baayac mushtarka ee labada wadan u dhaxeeya loogu fududin lahaa shaqooyinka iyo sidii annaguba central bank ahaan shaqooyinka noo gaara sidii aan isku xoojin lahayn waxa Djibouti jira iyo waxa Somaliland jira aan u fiirsano wixii halkan jiray xagga jira aan ku caawin karno shaqaalaha ha noqoto shuruudaha noqoto arrimo badan oo ay ka shaqeysanay waa maalin maartay maalin weyn weeyaan marka maanta wixii ka dambeeyo iyo bilaha soo socda iyo sanadaha soo socda waxa soo dhamaan doonayaan xoojisano assalaamu calaykum Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti